السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبada qiimaha badan aada idin salaamay meel walba caalamka joogtaan. Isku soo laabasho wanaagsan. Muuqaalkeenna maanta waxaa uga hadli doonaa insha Allah mowduuc aad u xasaasi ah isla markaasna ka mid ah mowduucyada loogu raadinta badan yahay dhanka internetka iyo Google-ka. Haddana si qaas ah maadaama aan ahay dhakhtarka daaweynta iyo qalliinada kelyaha kaada mareenka iyo taranka ragga waxaa iiga yimaado mowduucan su'aalo aad u fara badan اسبوعي يعني حتى بالمكان كسوتو موضوعاس او نقونايو العادة السرية وحلي يرادو اما masturbation كسودو داوشة موقال كان وحلي يرادو masturbation هدي اقيحنو اف صومالي جيدو حو نقونايا سيجا بلسه سي او امال دهنو كلمدان ان بدن ما استعمالي دوني وحا استعمالي دونا masturbation اما العادة السرية haddaba caadadan oo ah mid ka mid ah caadooyinka ay sida zaa'idka u sameeyaan dhalinyarada caalamka meel walba ka joogaan inta u dhaxayso da'da 15 jirka ilaa bilowga 40-meeyada waxaan ka fiirin doonaa dhanka caafimaadka waxa kaga aadan dhibaatooyinka mustaqbalka ay yeelan karto mowduucan runtii aadan u soo daahiyay markii loo fiiriyo sida aanan xaddiga lahayn oo ay dhalinyaro badan ii weydiinayaan inaan mowduuc ka sameeyo sababtan waxay ahayd in badan marka laga hadlayo takhasuska maadaama oo ma aragtay dadka liid gareenayo cilmi baarisada sameynayo ay yihiin dad aanan muslim ahayn sida badan buugaagta caafimaadka iyo risaalooyinka kala duwan iyo cilmi baarisada waxaa ku qoran waxyaabo positive u badan marka annagoo marka koowaadba iridka koowaad ee laga soo galo caadadan ka ummad muslim ahaan ognahay inay tahay wax xaraam ah maadaama ay isku raaceen culimada ahlul fiqiga dhamaantood ayad quraanana ay jirto waxa aad macnaha dibdhigayay ilaa aan ka ogaanayo ama aad uga baarayo isla markaasna aan heli doono cilmi baarisyo si waaqici ah u taabanayo dhibaatooyinka mustaqbalka ay keeni karto caadaha sirriya raadin badan kadib marka waxaan soo helay cilmi baaris laga sameeyay dalka Turkiga sanadkii la soo dhaafay ee 2023 cilmi baaristaas oo lagu soo ogaanayay waxa la yiraahdo erectile dysfunction oo ah haddii aan Soomaaliyeeno ama aan macnayno noqonayso qofka in uu ma aragtay xubinkiisa taranka ah raggan ka hadlayna xubinkiisa taranka ah inuu adkaan waayo isla markaasna shaqadii loogu talagalay oo ahayd qancinta awradiisa ama xaaskiisa inuu sida loogu talagalay u qaban waayo taas ayaa waxaa la yiraahdaa erectile dysfunction mararka qaarna waxaa loogu magac daraa waxa la yiraahdo impotence iyo xiriirka ka dhaxeeya markaas dadka aadka u sameeya waxa la yiraahdo alcaada sirriya marka team dhaqaatiir ah oo ahaa dhaqaatiir ku takhasusay qalliinada kelyaha iyo kaada mareenka iyo taranka ragga ayaa waxay sameeyeen bukaanadii u yimid oo dhan muddo sanad ah ayay waxay sameynayeen bukaanada u imaado dhan laba qaanad inay kala geliyaan bukaan walba oo u yimid caawasho la xiriirto erectile dysfunction iyo bukaan walba oo u yimid dhibaato kale oo la xiriirto yani kelyihiisa iyo kaada mareenkiisa iyo tarankiisa wax la mid ah hadduu ahaan lahaa dhagax hadduu ahaan lahaa prostate hadduu ahaan lahaa cancer iyo wax la mid ah marka labadaas qaanad ayay kala geliyeen bukaanadaas marka waxay ahaayeen dhexdhexaadka ka bilow da'da 18 jirada ilaa 45 jirada ayay ka sameynayeen marka waxay weydiinayeen haddii ay jirto ama ay sameeyaan waxa la yiraahdo caada sirriya iyo haddii kale dhammaan su'aashaas way weydiinayeen questionnaire laga buuxinayay waxaa la weydiinayay marka haddii jawaabta ay noqoto haa isbuuci meequu sameeyaa meeqa mar uu sameeyaa marka uu sameynayo awoodda uu isticmaalo yani qaabka uu sameeyo positionka iyo meesha uu joogo marka uu ku sameeyo waxa uu isticmaalo si caadadan u sameeyo dabcan waa ognahay way kala duwan tahay qaababka qofka uu dareemo inuu dareenkiisa kiciyo laakiin haba ugu badnaatee percentage ugu badan ha ahaado daawashada filmaanta xunxun iyo waxyaabaha qofka dareenkiisa kicin karo marka waxay raadinayeen iyaga macnaha hadafkooda ma ahayn qofkan muxuu ku kacay ama maxaa ku kalifay iyo wax noocaas ma ahayn laakiin waxay baarayeen xiriirka ka dhaxayn karo waxa la yiraahdo erectile dysfunction iyo waxa la yiraahdo caada sirriya xiriirka iman karo yaanan ka tegin waxaa kaloo ay weydiinayeen haddii uu qofka yiraahdo haa waan sameeyaa caada sirriya muddo intee leeg ayaa soo waday macna meeqa sanadood
ee soo waday maalan qofka haddii uu soo bilaabay markuu aadka u yaraa uu qaangaar bilowga ahaa ilaa hadda uu kale hadduu wado iyo qof muddo dhow bilaabay iyo qof yani muddo hore samayn jiray joojiyey kadibna kusoo laabtay yani way kala baxayaan marka qaabkaas kale wax weydiinayeen ugu dambeyn waxaa soo baxday mean age-ka ama dhexdhexaadka ugu badan oo caadadan sida zaa'idka u sameeya inay ahaayeen da'da u dhaxayso 20ka iyo ilaa 30ka okay plus da'daas waxaa yani waxay wada wateen inay sameeyaan caada sirriya plus inay la dhiban yihiin oo ay dhibaato weyn ka qabaan waxaa la yidhahdo erectile dysfunction waxaa la qiimeynaya marka qaabka ay u sameeyaan iyo qaabka ama waxa root cause-ka sababta keenayso qofkan inuu sameeyo masturbation dhibaatadan caafimaad ee horseedi karto marka inuu yeesho mustaqbalka dambe erectile dysfunction marka waxaa soo baxday qofka markii uu sameynayo caada sirriya in badan dhalinyartu waxay ogyihiin in qofka uu isticmaalayo gacantiisa gacantii way adag tahay lama mid ahan yani xubinkii loogu talagalay istimtaaca lama mid ahan marka waxaa dhacaya qofkii grip power waxa la yidhahdo inuu isticmaalo pressure adag inuu xubinkii gacan kula tago muddo dheerna wuu soo wadayay meeshaas marka maxaa dhacayo dhaawac ayaa wuxuu gaarayaa microvesseliska xididada yaryar ee xubinka dhiigga macnaha halboolayaal ah ama aroorayaal ah waxaa dhacaya marka long run macnaha waqti dheer markay hawshan socoto desensitization wax la yiraahdo ku imaanayo xubinkii in dareenkiisii u yaraado waxaa imaanaysa marka xubinkan keliya wuxuu dareen ku dareemayaa gacan adag oo si xoog ama arkino qasabna ah wax looga keenayo haddii marka ay noqoto wiilka dhalinyarta inuu guursado uu u tago ma arkino xalaashiisi isku mid ma ahan pressureka ka jira gacantiisa iyo xubinkan qaabka dabiiciga ah oo u samaysan yahay isku mid ma noqonayaan waxaa meeshaas ka dhalanaysa marka in wax qanaaco ah uu ku waayo dareenkii meeshii loogu talagalay oo la rabay inuu ku guto ma arkino waajibaadkiisa waxaa imaanaysa marka isku dhac iyo in laysla gaari waayo qofkii uu guursadayna inay heli weysa qanaaco asagiina qanaaco uu heli waayo maxaa yeele qanaaco wuxuu ku helaa oo keliya gacantan adag inuu arkino uu nafis ku dareemo mana qancin karo meeshan oo loogu talagalay macnaha meeshaas marka waxaa ka imaanayso jimaac caadi ah oo caafimaad qabo in laysla dhexmari waayo taasoo ku dhammaanaysa marka relationshipka inuu burburo dhanka kale waxay ogaadeen dhibaatooyinkan dambe ee imaanayo erectile dysfunctionka hore kugu soo sheegay sababihiisa inay ka mid tahay qaabka qaldan ee loo sameeyo qaababkaas qaldan waxaa ka mid ah zamanka hadda la joogo in badan waxaa la isticmaala waxa la yidhahda toys aa la isticmaala toy maxaa waaye bombalooyin loogu talagalay in lagu sameeyo alcaada sirriya ama masturbation dhalinyarta intaysan guursanin ka hor toyskaas iibsanayaan way isticmaalayaan toyskaas way adag yihiin qaarkood waxay leeyihin vibration qaarkood korontay ku shaqeeyaan waxyaabahaas dhan oo kala duwan qofka marka qaab dabiici ah ma ahan aslan waxa ka keenaya waxaa wax si adag xubinkiisa macnaha uga soo saarayo wixii dareero ku jiray macnaha qaar kale oo badan oo aanan toyska heli karin su-aalihii markii la weydiiyey waxaa soo baxday inay aad u isticmaalayeen waxyaabo jilicsan sida barkimo oo kale inay ma arkino xubinkooda ay aad ma arkino ku isticmaalayeen si ay ugu gaaraan pleasure gaar ah ay waxna uga yimaadaan dhanka kale qaar badan waxay isticmaalayeen oo ka soo baxday questionnaire-radii iyo su-aalihii la weydiiyey iyagoo u jiifaan maxaa la dhihi jiray dhambacaad ama xabad iyagoo u jiifaan xubinkooda tarankane ku haayo sariirtii ama joodariga ama meesha ay jiifeen qaab qaldan dabcan qaab loogu talagalay ma ahan mar walba muxuu sameynayaa xabad u jiifaa caloosha u jiifaa dhankeeda xubinkiisana sariirta ama joodariga ku hayaa qaabkaasuu ma arkin oo pleasure-ka ku dareemaya uga imaanaysaa nafs dhammaan marka isku gegeeyey waxaa la ogaaday mustaqbalka dhow marka guurkii markii la gaaro in dareenkii uusan ku gaari karin macnaha taas marka maxay imaanaysaa waa qaladaad badan oo ka yimid xilligii hore qaab qaldan oo ma arkino adag oo haddana waqti dheer muddo badan oo joogto ahna la samayn jiray natiijada ka imaadee marka ay noqonaysaa natiijada marka waxay noqotay dhammaan tiimkii bukaanadii ahaa oo dhalinyarta ahaa ee ka cabanayay waxaa la yidhahdo erectile dysfunction iyadoo meesha laga saarayo dhammaan sababaha keeni karo erectile dysfunction ay ka mid tahay qofka inuu dhibaatooyin ama xaalad caafimaad daro oo neerfaha la xiriirto inuu ku leeyahay waxa la yidhahdo spinal cordka ama xangulaha yani maskaxda labaad xangulaha ay marto lafdhabarta
inuu wax dhibaato ah oo la xiriiro sokor uusan qabin, inuusan dhiikar qabin, inuusan cholesterol qabin, inuu qabin wax la yiraahdo vascular disease oo xanuunada ku dhaw xididada iyo wax la mid ah. dhammaan marka meesha laga saaray labada group oo caafimaadka qabay waxay u kala bixeen marka group erectile dysfunction leh plus qaab aanan dabiici ahayn oo aanan caadi ahayn tiro aad u fara badan waqti joogto ah oo aan aad u dheer sameynayay alcaada sirriya iyo group oo aanan caada sirriya sameynaynin isla markaasna aanan ka cabanaynin erectile dysfunction. Okay, intii marka oo weydiinta ay socotay qaybtii hore su'aalihii la soo weydiiyey habitiska uu ahaa. qaybta dambe questionnaire-ka waxaa lagu weydiinayay su'aalo kale oo la xiriiraan erectile dysfunction wax la yiraahdo iyadoo la qiimeynayo. dabcan waa kuu soo qeexay waxa ay ahayd erectile dysfunction in xubinkii uu markiinoo istaagi waayo uu adkaan waayo kadibna shaqadii loogu talagalay uu qaban waayo. score ay u sameeyeen marka scorekaas oo laga qiimeynayo qaabkii uu xubinka noqday iyo qaabkii shaqadii loogu talagalay uu u qabanayay. scorekaas marka waxay u kala qaadeen eber ilaa 4. eber oo ka dhigneed koox totally يعني dhibaato weyn ay ka haysato xubinkooda inuu istaago ama uu bararo isla markaasna uu adkaado 0 totally. groupka koowaad يعني eber ilaa 4 soo maahan marka eber waa 0 يعني xubinkii maba ma arkino in dareen wax uu ku yimid oo kale maba noqonayba. koow marka maxay ahayd koow waxay ahayd xubinkii wuu yara bararay laakiin ma adkaanin. labo يعني scoreka labaad waxaa soo galayay xubinkii wuu yara bararay wuu yara adkaaday laakiin ma samayn karo shaqadii loogu talagalay haddii ay xaas tahayna macnaha qanaaco ama ma samayn karo jimaaca loogu talagalay. scoreka oo saddexaad wuxuu u noqday xubinkii wuu bararay wuu yara adkaaday markii oo shaqadii loogu talagalay uu guda galayna ma dhammayn karo oo meel dhexe ayuu mar labaad ku soo laabanaa 0. scoreka afraadna wuxuu ahaa xubinkii wuu bararay wuu adkaaday shaqadii loogu talagalayna wuu qaban karay. scorekaas marka waxay u sameeyeen waxa la yiraahdo erectile dysfunction. ma garan karo intee in la eg la fahmi doonaa yani mawduucan laakiin waxaa in badan rabaa qaab akhlaaq ah inaan uga hadlo oo aanan ma arkino kelmado suuqeed ah ama yani aanan maldahnayn inaan isticmaalo ma rabi. waxaan rabaa qofka inuu fahamkiisa isticmaalo anagoo akhlaaqda tixgelinayno. maadaama marka qaybtan lagu weydiinayay erectile dysfunctionka iyo heerarkeeda kala duwan oo score loo sameeyo kala ah eber ilaa 4 qof walba marka waxaa la weydiinayay scorekan markii uu meel kaga soo dhaco yani xubintiisa markii ay ma arkino shaqo qabanayso qaabka ay noqoto ay u istaagto wax noocaas waxaa scoreka laga weydiinayay marka 3 midkood. markii uu sameynayo istimtaac uu la sameynayo xaaskiisa ama gabadhiisa ama markuu sameynayo qaabka ay noqoto xubinka oo loo barbar dhigay marka uu sameynayo alcaada sirriya uu gacantiisa isticmaalayo qaabka ay xubintu u adkaato oo loo barbar dhigay markii jamaac ama galmo toos ah oo xaaskiisa la sameynayo ayaa loo barbar dhigay. saddexdaas iyadoo loo isku barbar dhigayo waxaa la weydiinayay yaa kicitaan ahaan xubinta adeeg ahaan barar ahaan iyo inay shaqada qaban karto saddexdaas iyo aad u fiicnaa macnaha xubinkaaga oo aad dareemaysay qanaacada meesha ugu sareyso. meeshaana marka natiijo ka soo baxday. natiijada ka soo baxday 3 koox waaye. 3da koox ay kala noqdeen waxa waaye koox oo aanan wax addicta ah ama aanan qabatin la lahayn waxa la yiraahdo sigaysiga ama alcaada sirriya oo caadi ah xubinkooda mar walba waa u caadi xaasaskooda iyo muxuu ahaa guryahooda way dhisan yihiin noloshoodana caadi u socotaa wax mushkilad kale ma qabaan. koox labaad waxay mushkilad weyn ka qabaan markii gacantooda ay isticmaalayaan xubinkooda wuu bararaa aadun u adkaadaa qanaaco xooganayna ku dareemaan waxayna dareemaan raaxo aanan caadi ahayn. markii laakiin ay u tagaan gabdhahoodii waxaa dhacdo in xubinkoodii uu ma arkino levelada ugu horeeya uu soo galayo 0 iyo 1 uu waxba uusan ahayn uusan qaban karin. kuwaasna kooxay ahayn. kooxda saddexaadna waxay noqdeen koox erectile dysfunction qabto laakiin sababteeda ay tahay mushkilad kale dhibaato sokor uu qabaa dhiikar uu qabaa problem kale uu xididada uu qabaa cholesterol uu qabaa yani sabab gaar ah jirto. kuwaas marka ma u kala duwaneen haddii uu isku dayo inuu gacantiisa isticmaalana xubinkiisa si xoogan ma u istaagaynin
haddii uu isku dayo in uu xaaskiisa u tagana xubinkiisa si xoogan muu istaagi karin marka mushkilada ka jirta natiijada marka maxaa waaye wax cajiib waaye natiijada waxay soo baxday kuba gacmahooda sida aanan caadiga ahayn uga soo caanamaalay in ay develop gareeyeen xaalad caafimaad ee loo yaqaano traumatic masturbation syndrome waa dhaawac ka soo gaaray xubinkii iyo xididadiisii iyo xitaa qaarkood waxaa la dhihi karaa neerfihiisa maxaa yeelay desensitization ku dhacaya yani xubinka mar walba si adag sida loogu lisayay yani dareemihii xitaa yaraanayo marka traumatic masturbation syndrome waxay noqonaysaa qofkii gacantiisii uu maarkino ragnimo meesha ugu sareyso ku dareemaa laakiin xaaskii zero yani waxba ma ka qaban karo oo runtii ah mushkilad aad u weyn maantana waxaa waaye public health problem caalamka dhan ka taagan waa macnaha dhalinyartii laba shay ayaa la degay oo la haray pornography daawashada filmaanta xunxun oo gabagabadeedana ay tahay masturbation natiijada marka maxaa waaye natiijada marka waxay noqonaysaa oo tan ugu xun ah nin walbo dhalinyaro ah wuxuu ku fikirayaa inuu xaas yeesho inuu mustaqbal yeesho inuu caruur dhalo inuu nolol farxad leh ku noolaado mashaakilna ma rabo sida ugu wanaagsan oo qof bini'aadan u noolaan karaa uu rajo ka leeyahay dabcan laakiin waxaasoo wada positive ah oo riyooyin wanaagsan ah waxaa ka soo horjeedkeeda imaanayo caadadan oo kula degi doonto oo kula hari doonto dhibaatooyin badanna iyo dhaawacyo kugu keeni doonto relationshipkan wuu ku burburaya relationshipkiyaa burburaayo qofkii wuxuu dareemayaa guilty maanta dhan wuxuu dareemayaa dembi sababtoo ah daqiiqada yar oo maarkino gacantiisa maarkino isaga lisay wuu nafisay laakiin waxaa ka dambeeyo wuxuu dareemayaa dembi wuxuu dareemayaa niijab wuxuu dareemayaa walaac wuxuu dareemayaa depression in badanna waxaa dhacayso inay addict noqdaan addictiga maxaa waaye xitaa asagoo rabin oo niyadda ka nacab inuu sameeyo ficilkan haddana wuu sameynayaa mar walba uu ku dhiban yahay xitaa mararka qaar waxay gaaraysaa inuu meelaha publiga ah uu isku dayo xataa xubinkiisa inuu qabsado inuu meelaha la soo istaago yani dabcan bulshada dhexdeeda dad badan waa way jiraan suuqyada inay yimaadaan iyagoo xubintooda haayo iyagoo isku dayayo ma arkino dad inay ku foodeeyaan meelaha qaar waxaa arkaysaa inuu xubintii baneynayo gabdhaha marka meel luuq ama meel cidla uu ku helo yani addict u gaaray qofkaas yani balwaday u noqotay maanta dhan wuxuu rabaa xubinkiisa inuu gacanta ku hayo yani nolol kale ma jirto marka haddii oo baashaan la yiraahdo masturbationka ama sigaysiga oo caadadaas in badan kusoo jirtay plus hadda ama xaas aa yeelatay ama mar dhow aa qorsheynaysa inaa xaas yeelatid oo aad dareemaysid walaac nasasho la-aan niyad jab shaqadaada aadan ku faraxsanayn waxbarashadaada aadan ku faraxsanayn joogitaankaaga meesha aad joogtid friends aadan samayn karin dadkii aadan la heshiin karin inaad go-isid aad dareemaysid runtii intii aadan dhakhtar dhimir aadan u tegin waxaa u baahan tahay inaad urologist soo aragtid dhakhtarka urologiga inaad soo aragtid la ogaado dhibaatooyinkan aan hore kuugu soo sheegay lagaa fiiriyo xubinka taranka computer lagaa saaro mararka qaar dublara isticmaalnaa lagu ogaanayo xididada dhiigga oo muddo lasoo maarkiinoo lisaya dabcan waxaan waa dhaawac meeshaan hadda gacanteeda farteedaas haddii maantana aan saas u xoqo waxaa dhacayo frictiona ku imaanayo frictionkaasne maqaarkuu dhaawacaya timaha serarka meesha ku yaal u dhaawacaya yani si guud kadibna wuxuu dhaawacayaa xididada ka hooseeya iyo nerveska marka haddii uu dhibaatooyinkan qaarkood aa leedahay as early as possible la xiriir dhakhtarka urologiga ceeb ma ahan intaadan dhakhtar dhimir u tegin haddii laakiin dhimir calaamadihiisa wax ka mid a leedahay oo depressionka oo aad dareemaysid inaa mararka qaar xitaa inay isdilaan dhalinyarta usoo baxayso noloshaan maxay ahayd yaa iga wado ma ahan dhaqaale xumo ma hayso mushkilad kale ma hayso laakiin meeshaana aa la degayso marka xitaa mushkiladda bulshadeena ka jirto gudaheeda waxaa ka mid ah shameness qofka uu xishoonaya adoo nin weyn maa inaad dhakhtar wacid aad dhihi kartaa doctore niyo baashaasaan ku dhibanahay no it's simple yani dhakhtarka waa qofka loo sheegto arrimahaaga privacyga ah marka ugu koowaad yani allah subxana watacaala waxaa leedahay ilaahayo dhibaatadaas ay haysato problemkaas ay haysato ilahayo iga qaad marka labaad macnaha maxaa samaynaysaa doctorow arrintaana ay haysato bal xal iyo tala isii ka doctor cadnaan ahaan feel free mar walba dabcan online consultation system aan leeyahay haddii ay la soo xiriirtid muxuu ahaa tiimka ila shaqeeya kusoo dhaweyn doono balanaa lagu qabanayaa muxuu ahaa personal consultation ana kaaga sameyn doonaa mawduuca hor usii wadno su-aal marka isweydiiyey meeshaan markaa marayno waa muhiim inaad isweydiisid adiga
haddii qof dhalinyaro aad tahay dabcan caada siriya ragga keliya ma ahan dumarkana aaday u sameeyaan wiilasha keliya ma laakiin topigan aan si gaar ah wiilasha aan focus ku saarayay topigan wuu weyn yahay macnaha halkan video dabcan ma ku filno mustaqbalka dhow videoyo kale ka sameynaynaa anigoo tixgelinayo qaabka commentiga uu noqon doono iyo waxyaabaha oo layga soo weydiin doono haddaba isweydii maxaa adiga u samaysaa caadadan inay xun tahay waa isla fahansannahay laakiin waayaa u samaysaa dadka qaar waxay ku leeyihiin relief inaan ku dareemo yacni cadaadiska iga haysto shahwadan igu aruureyso dhibaatooyinkan i haysto inaan ku nafsa u baahanahay okay dadka qaar dhibaato xoogana waxay ka haysataa inay si caadi u hurdaan ogsoonow dadaasha muxuu ahaa caada siriya u sameeyo just to sleep si ay u hurdaan markay baashaan sameeyaan oo gacantooda isaga keenaan hurdaa ka timaado yes ninka ragga ah markii uu ay shahwo ka timaado jirkiisa dhan relief uu dareemaya muscleska dhan relax ay noqonayaan hurdaya dabcan hurdo darteed u sameeyo dadaa waxay u sameeyaan markay dareemaan boring yacni shaqo ma hayaan waxbarasho ma ku jiraan shaqo gaaray ay ku foojigan yihiin ku mashquulsan yihiin ma jirto gurigu iska jiifaa marka free time asoo baxayo mar walba qofka bini aadanka ah oo ma arkino fursad iyo waqti faadi ah oo u soo baxone inuu wax xun ku fikiraa marka aad dhawaanayso marka xilligaas boringka uu dareemayo film oo wuxuu daawanayaa xunxun wax dareenkiisa kicinaayo gacantiisu iskula tagayaa at the end muxuu noqonaa haddana shalayda mar kale cycle dib u bilaabanaya shalay maxaa u sameeyay maxaa keenay sababta ugu weyn oo markaas oo u sameynayna waxa waaye dopamine uu raadinaya dopamine dabcan waa hormoonka farxadda soo maahan waxaa la yiraahdaa feel good hormone daqiiqada yar oo ma arkino wuxuu tagayaa pike waxay yiraahdaan dopamine-ka soo deyntiisa waxa ugu degdega badan isla markaasna meesha ugu sarreeyay geeyo soo deyntiisa waxaa kamid ah waxyaabaha la xiriiro sex related issues in qofka qof uu jecel yahay uu dhunkado qof uu jecel yahay uu la sameeyo galmo qof yani gacantiisa inuu isticmaalo ayankan ay shahwo ka timaado meesha ugu sarreeyay gaaraa laakiin maxaa xigo waxaa xigo 5 days oo ma arkino shalaya isweydii marka adiga su'aashan ku soo laa waaya u samaysaa saana u sameeyaa oo saddexda qodob ugu waaweyn oo hadda aan kuu soo sheegay iyo boqolaal qodob kale oo adiga maskaxdaada ku jira u samaysaa Soomaan yalla marka aan wax yar bedelno boorina dareentaa guriga ka bax xoogaa socod aad earphone-kaaga gasho waxaa jeceshahay dhegeyso podcast-yadeena dhegeyso video-ga gashado yani waxaad doontid dhagaha gasho socod yara aad cagaaga biyaha gacanta ku qabso ma ahan moo gym-ka tag asxaab samayso asxaabtaadii adiga comfort zone-kaas inaad ka baxdaan baxa gobol aada baawur qaata israaca enjoy xoogaa ma arkin oo adventure samey meel kugu cusub tag jawiga bedel any activity oo aad farxad ku dareemaysid waqtigaas gili hurdo ma ku hayso hurdo ma ka iman la daali jirkaaga dabcan muuqaal dhan oo sleep uga soo hadalnaa jiro haddii kanaalkayga aad dib ugu laabatid muuqaal qaabka loo hurdo iyo waxyaabaha hurdo la'aanta keenay macnaha aad jiro daawo waxaa laga yaabaa waxyaabo muuqaalkaas aan ku sheegnay oo tips and tricks yar ah inaa u baahan tahay dhakhtar aad ka maqashid kadibna wax kaa bedelo noloshaada hurdo fiican aad heshid marka saaxiibayaal waxaa u baahannahay caadadaas inaan joojino stop hadda jooji biri ma ahan biri damba ma ahan hadda jooji videogan waxaa rabaa inuu go'aan kuu noqdo sababtoo ah noloshaada ahalaagusa macnaha noloshaada baabi'inusa hadda xal ayaa leedahay laakiin baasha markii ay isku bedasho chronic disease xanuun aan waxba laga qaban karin oo vesselska ay baaba'aan xididada ay baaba'aan nerveska mushkilad ay ku timaado xubinkii dhibaato xooggan ay ku timaado yani inaa ku daaweyn waqti dheer qaadanay haddii xaaladaas ku jirtid insha Allah different modalities qaabab kala duwan oo daawo waa helaynaa waa ila soo xiriiri karaysaa options kala duwan aan isla fiirinaynaa haddii laakiin oo aanan weli heerarkaas dambe la gaarin waxa ugu xun waxaa ka mid ah xubinka sida aad u lisaysid oo mar walba trauma u gaarsiinaysid micro traumooyinkaas dhaawacyadaas yararka isku tagay waxyaabaha ugu xun dhici kara waxaa ka mid ah waxa la yiraahdo Peyronie disease maxaa waaye fibrotic haar adag inay ku dhex samaysanto muruqaha xubinkaaga taranka xubinka uu qalloocdo waxaa laga yaabaa inuu kor u qalloocdo waxaa laga yaabaa inuu bidix u qalloocdo midig u qalloocdo mar walba uu isku dayo xubinkaas inuu istaagana xanuun aad u daran uu dareemayo qofka qaliilan lagu xaliyaa dabcan marka meelahaas dhan isla gaarayno dabcan videogan reaction ka yimaada iyo commentiga ka yimaada anoo tixgelinayo
part 2 iyo part 3 ka sameyn doona oo meelo gaar ah hadana diiradda saari doono adiga marka isweydii intee in la eg caadadan soo sameynaysay ma la gaaray xilliga aad dhihi lahayd enough way ugu filan tahay haddaba waa joojin doontaa go'aan qaadan doontaa intee in la eg hadane off ka qaadan kartaa oo aad joojin kartaa no not alirada not iradan muxuu ahaa qolada ingiriiska waa kelmadda oo suuqa ilaa intee in la eg ka joogi kartaa bahashaas iyadan isweydii war waa joojiyay hay ilaa intee in la eg go'aankaas qaadan kartaa waxaa kaloo isweydiisaa hadda adiga xaas ma leedahay sababtoo ah aan idin weydiina waxa waaye dad badan oo xaasas leh awil bahashan ku dhiban macnaha oo sida taa u wado xaas ma leedahay ha xaaskaaga ku istimtaac insha Allah wax walba way hagaagayaan xaas ma lihid maaho ma ku qorsheysantahay inaad guursatid ma qorsheysno waayahay option kale inaad fiirisid maxaa diiday qof dhalinyaro tahay xoogaa leedahay yaa macshar shabaab man istidaaca minkum alba'ata falyatazawaj qofkii aanan awoodin maxaa waaye siyaama lagu dhahay macnaha isbuuci hal maalin ama laba maalin aad suntid jirkaaga enerjigiisa iyo shahwadiisa yareynaysaa waxay ka dhigaysaa qof iska xanibi karo dhammaan ficiladaas maldahan oo aanan wanaagsaneyn macnaha qof ka xanibi kare ka dhigaysaa maxaa yeelay self discipline ka lagu bartaa in qofka uu soomo dabcan nabiga noo sheegay soonka asaga kugu filan inuu indhaha kugu laabo asaga kugu filan inuu xumaan oo dhan ka ijaabo saaxib maadaama waan isla ognahay baashan inay xaraan tahay yani dabcan waa ognahay dhalinyaro fara badan qof walba naga mid insaan aan nahay anoo qalad iga dhaca saaxiibadii ka dhaca adiga daawanayo ka dhaca laakiin muhiimadda maxaa waaye qaladkaaga inaad fiirisid xasuusatid ku laabatid ka toobad keentid inta aysan kula gaarin xilli aad addicted noqotid addictionkaagan uu gaaro in xubinkaaga oo keliya uu ku hogaamiyo macnaha indhaha iyo tooshka aad ku socota asaga uu ku noqdo meeshaan yani fisqigan ku sameeyey maantan isticmaal mentalitygaas waxaa rabaa inaan ka weynaano oo productive mentality ayaan waa isla fahanay aayad dhan oo qur'aan ah waxay leedahay walladina hum li furujihim xaafiduun illa ala azwaajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin aayadaas macnaha maxaa waaye laba shay lagu baniyay adiga ninka ragga oo ina xaaskaaga u galmootid iyo in kuwii gacmihiina midigta ay qabsadeen oo laga wada adoomada xilligii markiino asxaabta igana way ku banaan yihiin wax walba ka soo haray oo ashaawi isaga keenaysid waa xaraam waa ogahay dad dhihi doono sheekh hebel hadda ka hor ka maqlay baashaas yani makruuh waa la yiri baashaas xaraan ma ahna la yiri adigu wixii falsafadeen iska dhaaf diinta wixii ay ku dhahdo waxaan ka fogow cilmiga caafimaadku wuxuu ogaan doonaa kumanaan sano ka bacdi ilaa hadda masturbationka inta laga yaqaano way kooban tahay that's why oo aniga in badan videogan uga gaabsanay inaan sameeyo wax walba cilmiga caafimaadka sida hore kugu soo sheegay positive ka qoran prostate cancer ay yareysaa way wanaagsan tahay qofka tensionka ka saartaa depressionka ka saartaa kan ay ka saartaa mush caarife adi hal go'aan qaado qof muslimna tahay iimaankaaga inuu ku hagaag la rabaa waxaan waa laga xaraantinimay there is a reason anaga hadii uusan na soo gaarin cilmigan oo hadda laga ogyahay kaliya erectile dysfunction waxa laga yaabaa generationka naga dambeeyo kuwa adalna iyo kuwa ay sii dhaleen cilmi baarisada inay ku soo bixi doonto masturbation kumanaan effect ay leedahay balse diinteena 1400 sanadood ka hor ee naga xarimtay marka wax walba sababa jirto marka cilmigana wama utiitum min ilmin illa qalila waxa aan ka ognahay way iska kooban yihiin marka saaxib waxa rajeenayaa mowduucan inuu wax ku bidaamiyay wax una ka ogaatay baashan mowduucan oo ahaa mid kamid ah waxa ugu badan oo leeso weydiiyay not only kanaalkayga kaliya ma ahan xitaa podcastka oo aan wadno asagana macnaha aadan lagu soo weydiiyaa marka insha Allah haddii aan la soo gaartay qaybta ugu dambeysay ee videoga wixii ku saabsan mowduucan oo aad su'aal ka qabtid ama aad ku dari lahayd ama aad wax iga weydiin lahayd qaybta commentiga noo reeb si aad u ogaano mustaqbalka soo socdo videoyada ku saabsan wax la xiriiro masturbation aan sameyn doono qaybaha aan diiradda ku saari doono insha Allah waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan ha iloowin inaad muuqaalka ku caawisid like si algoritmka uu galo walaalo fara badan ay uga faa'iideystaan isla markaasna kanaalka haddii aad ku cusub tahay subscribe inaad saartid wax weyn inooga dhigan tahay waxaa inoo ballan ah muuqaalka xigo insha Allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh